Bismillahirrahmanirrahiim. Saaxiibayaal ku soo dhawaada course-geena in website-ka ama blogging-ka. Runtii course-dan in badan ayaan soo jeedinaynay in aan si free ku bixin doono. Sidoo kale waxaa jirtay course kale WordPress ayadana WordPress blogging ayada tan hadda waa blogger taasna WordPress bay ahayd. WordPress-ka diiwaangelinteeda $5 bay ahayd. Dhalinyaro badan is diiwaangeliyey wayna xirmantay. dhalinyaradaasna way qaadanayaan caawa casharada dhammaan way bilowdeen course-tii free-ga ahayd iyo tan kaleba. tan xigtana waxaa diiwaangelinteeda lacag qaadi doonaa course-dan. tan WordPress-kana waxay noqon doontaa mid free insha Allah. haddii aad naga mid tahay fadlan naga sugo insha Allah anaga wax walbo diyaar kula sida aan wada ognahay blogger haddii aadan ogeyn blogger waa mid ka mid ah meelaha lagu dhibso website-yada adduunka la adeegsado sida BBC-da iyo waxyaabaha la mid website-ka BBC camal iyo website-yada la mid marka website-kan hadda aad ujeedaan oo arlada ku qoran waxaan meeshan usoo saaray inaan si tusaale ahaan idin tuso. waxay siiyeen free domain ay siiyeen iyo free domain name oo ayaga siiyay jiro. blogger marka aad samaysato waxay ku siinayaan domain name oo free ku siinayaan. sidoo kale sidaad ujeedo waxaan soo geliyey ilaa iyo dhowr post aan soo geliyey. dhowrkan post aan soo geliyey waa wadaa inaan goordhow insha Allah mustaqbalka inaan qaybtaas yar aan iskaga bixiyo kadibna aan nuurarladipro.com in ka dhigo insha Allah. inkastoo hadda aan website-ka dalabskills.site aan adeegsano marka waxaan rabaa inaan idin tuso sida WordPress blogging-ka marka ugu horeysa loo samaysto. qofka marka uu isticmaalayo Google wuxuu qoranaa aniga hadda computer isticmaalaya balse waxaa macquul ah ardayda qaar inaysan haysanin bahalkii computer inaysan haysanin. mobilkaaga waa ku samaysan kartaa website mobilkaaga waa ku samaysan kartaa blogger meesha ay ku qoran tahay chrome-ka ayaad galaysaa waxaa ku qoraysaa blogger. aniga mar hore soo galay blogger hortiina ku qoray blogger.com ayaad ku dhufan website-ka fiirinaysaa www.blogger.com meesha ay ku qoran tahay waa meesha website-ka lagu soo abuuro. website hadda blogging ah ayaan soo abuuranaynaa. qaabka u soo abuuranaynaa ila fiiriya insha Allah. welcome halkan waxaa noogu bilaaban doono inaan website-ka blogger.com aan abuurno. marka aad meeshaan imaato dashboard-kan wuu ku siinaa. dashboard-kan marka aad imaatona create your blog ayaad ku qoraysaa. create your blog marka aad ku qorto waxaad samaynaysaa just Abdinaasir Cali waa nin saaxiibkayga la dhahaa. emailka aad create your blog marka qofto emailka aad ku samaysan lahayd ayaad meeshaan soo gelinaysaa. markaas aad soo geliso emailkaas insha Allah wuxuu si toos ah ku dhex dhigi doonaa shaashadu si toos ku dhex dhigi doonaa. just hadda wuxuu weydiinaa emailkan passwordkiisa weydiinaa laakiin anigu passwordkiisa ma hayo maadaama aanan haynin passwordkiisa wiilkii iska lahaana uusan hadda online noo ahayn website ay sameeyo saas uu igu soo dhiibay. marka waxaan sameynaynaa email kala soo kicinaynaa oo aan anigu leeyahay midkaan dalab online midka ay leedahay camal ayaan soo kicinaynaa. kanaan ku baraatikeynaynaay bal fiiri blogger meesha ku qoranaysaan ama aniga computer qofka adeegsanayna meeshaas Google mar hore tusi hadda aniga kana ay fudud kana iska qaybtan iska adeegsanaa. marka aad Chrome adeegsanaysid meelahaas taabo laakiin marka aad Google-ka computer adeegsanaysid asaga ku siinaa Google application waaye. Google application aad ka dhex heli kartaa oo waxaa kaloo jirto horta waxaad ogaataan marka shaqo la dhaho wax ka fiican ma lahan marka blogger inaad website-ka aad rabto inaad ka shaqaysato ama inaad ugu shaqaysato marka aad rabto waxaa waaye
asaga ugu fiican blogging-ka ugu fiican sababtoo ah shirkadda Google aa iska leh qofka xayeysiin loo sameynayo inuu waa maaragtay Google AdSense waxaa iska leh Google aa iska leh marka haddii aad theme qurux badan oo kii hadda camal ama mid ka qurux badan aad u hesho oo aad kadibna marka aad website-kaaga samaysato domain fiican aad ku xirato kadibna aad ku xirato Google AdSense markaad maaragtay ilaa 10 post camal markaad soo geliso Google AdSense aad dalbato waxaad si toos ah marka aad maaragtay si fudud ku heli kartaa waxaad si fudud ku heli kartaa inaad maaragtay maxaa la dhahaye aad yacni aad ka mid noqoto ama aad yacni noqoto blogger aad saas ku noqoto qof maaragtay blogging leh aad saas ku noqoto marka aad magac soo doorato wuxuu ku keeni doonaa ama Gmail aad soo doorato meeshaan wuu ku keeni doonaa haddii aad Chrome mobile aad ku isticmaalaysid meeshaan wuu ku keeni doonaa marka maxaa u samaynaysaa lagu dhahay ama title-ka yacni guud ahaan maxaa ka rabtaa this is the title that will display the maaragtay kan yacni wuxuu noqon doonaa maaragtay meesha hadda meeshaan haddaan fiirino maaragtay wuxuu noqon doonaa kan title-kan uu noqon doonaa qaabka meeshaan ay Nuur Arlaadi ku qoran tahay camal uu noqon doonaa waana isla arki doonaa fiiri marka wuxuu noqon doonaa maaragtay lagu soo bandhigi doonaa hadda aan ka dhigno dalab group ama aan ka dhigno dalab group next dheh kan wuxuu kusoo bandhigi doonaa maaragtay qaybta kore ee shaashadda ayuu kusoo bandhigi doonaa ee website-ka uu kusoo bandhigi doonaa dalab group dalab intaas aan kusoo koobo domain-ka inuu dheeraado ma fiicna adiga magacaaga ka dhigan kartaa waxaa ka dhigan kartaa aniga hadda hebel maxamed haddaad tahay maxamed.com ama iskaga dhigi kartaa laakiin waxaa waaye waa sidoo kale meeshana dalab magacii xagga aad kusoo qoraysa le inta ku qore sorry maaragtay meel wadda agteeda deganahay dalab waa ka maaragtay dalabaa ku qoray meeshaana display name-ku waaye magacii title-ka camal aad iskaga ku qoraysaa asagana waa mid ka mid ah magacyada asagana maaragtay qaybta kore maaragtay dadka akhristayaashaada loo muujin doono insha Allah waa kaas hadda website saasaa kusoo sameeyay dalab group maaragtay title-ka sidaa ugu jeeday dalab group wejiga hore website-kan wuxuu soo qori doonaa dalab sidaad maaragtay sida aan hore view blog haddaan dhahno view blog marka aad dhahdo wuxuu ku geynaa maaragtay sida ay dadka adiga kusoo booqanayaan ay u arkayaan website-kaaga hadda website-ku wuu noo samaysan yahay keliya waxaa ka dhiman inaan boosta soo gelino caawa isla muuqaalkan kuma baranayno ama isla casharkan kuma baranayno sida boosta loo soo geliyo cashar gooni ayaan ka dhigi doonaa sida boost loo soo geliyo balse waxaan dooranaynaa theme maaragtay sida theme-ka yacni uu leeyahay ama yacni theme-ka hadda marka aan fiirino theme black maaragtay gadaal dhagaxaan iyo wax ka ayuu isticmaalay wuxuu kaloo leeyahay theme-yo kale oo kan ka qurux badan uu leeyahay kuwa midka hadda noo saaran ka qurux badan uu leeyahay lacala muuqaalka hadduu waxoogaa travelance noqdo raali ahaada lacala muuqaalka hadduu travelance noqdo raali ahaada insha Allah waxaa waaye meel wadda agteeda deganahay markan waa idinka raaligelina maaragtay theme-kan aa ujeedo theme-kan ayaan apply dhehenaa theme-kan aa ujeedo ayaan apply dhehenaa maaragtay dhankan wuu kusoo muujin doonaa meeshaan wuu kusoo muujin doonaa xayeysiinta iyo waxyaabaha maaragtay marka theme-kan ayaan hadda apply dhehenaa theme-ka ayaan koodii soo doortay markaan kusoo dhuftayna apply uu iga rabaa apply aa dhehaysaa apply markaan dhahno marka aan ku laabano aan dhahno view blog aan dhahno wuu isbedelaa wuu iska bedelaa hadda kan hadda ujeedo iyo kan isku mid maaha sida ujeedno kan waa kana bis hadda kanaa ku qaadanaynaa habeen dambe waxaan gelinaynaa insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo ama casharka next lesson waxaan kasoo dhigaynaa insha Allah asagoo maaragtay post qaabka loo soo gelinayo post qaabka loogu soo qoraayo ayaan ka dhigaynaa next lesson waxaan ku dhigi doonaa sida theme aniga aan leeyahay oo free adina aan ku siin doono ayaan maaragtay ku wada qaabeynaynaa next kale maaragtay lesson kale maaragtay casharka kale ku xigno waxaan ku dhigaynaa sida pageska loo sameynayo meeshan hadda marka asaas dhahdo wax kuma lahan laakiin meeshan maaragtay yacni sida hadda maaragtay aaway kii Nuur Arlaadi aaway marka aad soo fiiriso
meeshan markaa fiiriso waxaa ku qoran maaragtay koorsooyin maaragtay si fudud ku baro oo ugu shaqeyso online-ka, fikrado ganacsi, wararka teknolojiyadda. So maaragtay yacni sida saan inuu lahaadaa la rabaa maaragtay website-kaaga sidoo kale saan camal inuu lahaado. Marka haddaba sidaas aan saas ku dhigno cashar ayaan ku qaadan doonaa insha Allah. Waxyaabaha maaragtay kaa caawinaya in Google AdSense inuu website-kaaga soo aqbalo ayaan sidoo kale ka dhigaynaa. Insha Allah maaragtay intaas ayaan in ahaan doontaa koorsadeena. Wabillahi tawfiiq. Intaas aan kusoo koobay. Muuqaalkan ku cesho wixii su'aalo kale oo ku adkaado cashirkaani WhatsApp-ka iga soo weydii midka ay dalab skills ay ku qoran tahay ayaad maaragtay iga soo weydiinaysaa insha Allah. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Next lesson on